السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كأمر كلا سود وهذا أدياد ومحسنتين من توار بقو شنطة بشا لحاد سنة كلا بدو يا فري لباتنكا مقال كان وحربا إن الأوجه هذا وريكتزي شلي مدحوين جو بايدن وكل واقعي ودونayay in uu ku dhawaaqay oo sheegay inuu xadka ku xirayo marka tiracay man ay gaarto dadka xadka soo galaya maalin kasta arintaasi oo hay'adaha u dooda xuquuqda dadka soo galootiga iyo qaar ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ay ka soo horjeesteen Trump nafsad ahaantiisa oo ka hadlay madaxweyne Joe Biden oo Trump eedeeyay Trumpna oo Biden eedeeyay arintaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago maalintii labaad ayaa xirbeegtida 7 qof ee Soomaalida ah ee dacwadda ay uga socoto magaalada Minneapolis ay ka baarandegayaan kiiskii lagu wareejiyo ahaa inay go'aan ka gaaraan in 7 qof ee Soomaalida ah ee lagu eedeynayo lacagtii carruurta loogu talagalay inay si qaldan u isticmaaleen inay dembi leeyihiin iyo inaysan dembi lahayn iyo sawirada 7 qof oo la soo bandhigay maadaama la xiray isniintii arrintii laaluushka markii ay soo baxday iyo ninkii Soomaaliga ah ee askariga Mareykanka ku dilay Minneapolis maalnimadii Khamiista ahayd oo la shaaciyay magaciisa iyadoo ninkaasi ku dhawaad muddo 20 sano uu xabsi inuu galo iyo inuu ka soo baxo uu ku jiro uu dambiile ah la raadinayay isla markaana uu askari dilay dad kalena uu dhaawacay maalintii Khamiista Minneapolis gudaheeda arrimahaas ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore aan ku hormaro madaxweyne Joe Biden maalnimadii shalay ahayd wareegta ayuu soo saaray wareegtadaasi waxa uu ku sheegay in xadka Mareykanka uu si automatically uu xirmayo marka tirada maalin kasta soo gasha ay tiracay man ay gaarto amarkaasi ama wareegtadaasi waxay dhaqan gashay xalay saqdi dhexe 12 iyo hal daqiiqo markay ahayd ayay si rasmi ah u dhaqan gashay maanta xadku waa xiran yahay maxaa yeelay shalay dadka soo galay tiradii loogu talagalay waa ay dhaafeen arintaasi marka madaxweyne Joe Biden sida aad aragtaan qoraalkan aan idin tusayo waxa la soo geliyay Twitter-ka madaxweynaha iyo waliba Facebook page-ka madaxweynaha waxa ugu horeeya in talaabadan uu qaaday oo wareegtada shalay madaxweynaha waxa ku qoran in dadka soo galootiga ah ee xadka ka soo gala dhinaca xadka koonfureed si sharci darrana uga soo gala in loo diidayo in wax magangeliya ah la siiyo marka waxa sidoo kale qaybta hoose ku sii qoran ilaa iyo dhowr tilaabo oo sheegay in maamulka madaxweyne Joe Biden ay dhawaan qaadeen si xadka ammaan looga dhigo waxa kamid ah in la xoojiyay magangeliyadoonka iyo sidoo kale dadka magangeliyadoonka ah ee screening ama baaritaanka lagu sameynayo waxa kamid ah qodobkii cusbaa oo wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda ay iska kaashanayeen oo ahaa in laga hadlo kiis go'aan looga gaaro kiisaska dadka magangeliyadoonka ah 6 bilood halka markii hore 6 sano ay ahaan jireen arrintaasi ma dadkii dhawaan sanadihii u dambeeyay soo galay ayay qusaynaysaa mase waa dadka hadda kadib soo galaya sida hadda muuqataba waa la xadiday tirada dadka soo galaya marka waxay u muuqataa sanadihii u dambeeyay dadka soo galay in kiisaskooda si degdeg ah go'aan looga gaarayo sida qodobkaasi uu dhigayo waxa sidoo kale kamid ah qodobka saddexaad uu yahay in fiisiyaasha laga laabanayo madaxda hay'adaha iyo mas'uuliyiinta dawladda kuwaasi oo ka faa'iida dadka soo galootiga ah ee nugul ka faa'iideysta waa wadamada waxa laga hadlayaa dadka muqallasiinta iyo waxyaabaha si dadka gacan ka siiyay sharci darrada Mareykanka ay ku soo galaan qodobka afraad wuxuu yahay in la balaariyay in la kala furfuro dagaalka lagu doonayo in lagu kala furfuro kooxaha dadka ka ganacsada waa muqallasiinta ayaa loola jeedaa isla markaana sidoo kale ka faa'iideysta dadka soo galootiga ah in sidoo kale la maxkamadeeyo dadkaasi qodobka shanaad wuxuu yahay in la kordhinayo ciidamada wax ka qabanaya arrimaha dadka soo galootiga waa talaabooyinka u dambeeyay oo dawladda Mareykanku ay qaaday ayaa ku qoran waxa sidoo kale kamid ah in gacan laga geysanayo sidii fentanolka Mareykanka soo gala wax looga qaban lahaa marka madaxweyne Joe Biden maalnimadii shalay ahayd waxa uu Trump ku eedeeyay in sharcigii dhawaan xubnaha sanadka ee Republikaanka iyo Dimuqraadiyiinta ay ka wada hadleen oo isagu ku buuxiyay xubnaha Congress-ka in ay diidaan marka waxa uu yiri ma doonayo inuu arrintan xalliyo sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu isticmaalo si uu aniga igu weeraro Biden marka arrintaas ayuu si weyn ugu eedeeyay Congress-ku waxa uu yiri haddii ay ansixin lahaayeen sharcigaasi waxa la hayr gareyn lahaa 1500 oo ciidamada xadka jooga ah 100 garsoorayaasha go'aanka ka gaara dadka soo galootiga marka kiiskoodu maxkamadda uu gaaro 4300 oo saraakiisha dhinaca xadka joogta oo magangeliyadoonka dadka siinaysa maadaama waxa uu yiri hadda maxkamadaha kiisaska horyaala ay 2 milyan
ay kor u dhaafeen. Marka waxa uu sheegay in arrimahaasi oo idil haddii Congress-ka uu tallaabadaasi qaadi lahaa in arrimahaasi oo idil wax laga qaban lahaa. Marka meelaha laga soo galo ports of entry-ga ayaa qofku haddii uusan ka soo gelin oo si sharciya uusan waddanka ku soo gelin magangelyo waa loo diidaya. Marka sida hadda sharcigan ku qoran maalin kasta dadka soo gala 2,500 haddii ay gaaraan automatically xadku waa uu xirmaya. Xadku marka waxa uu dib u furmayaa dadka toddobaad kasta soo gala markay hoos uga dhacaan 1,500 oo qof. marka sidaasi ayaa ah waxa la leeyahay hadda toddobaadyadii bishii la soo dhaafay waxay gaarayeen 3,800 ilaa 4,000 dadka maalin kasta soo galay. marka sidaasi ayuu maamulka madaxweyne Joe Biden oo go'aankiisa maalnimadii shalay ugu dhawaaqay. Trump bartiisa YouTube-ka ayaa muuqaal kooban uu soo geliyay waxa uu ku sheegay in madaxweyne Joe Biden tabardaradiisa dhinaca siyaasaddiisa ay sababtay in weerar lagu soo qaado dadka soo galootiga Mareykanka ay si sharci darro ugu soo qulqulaan. waxa uu yiri wadamada caalamka xabsiyadoodii waa ay soo faarujiyeen, goobaha dadka waalan lagu hayo waa ay soo faarujiyeen, dadkii daroogada ka ganacsanayay iyo argagixisadiiba waddankeena ayay soo galeen. marka wareegtadan uu madaxweyne Biden soo saaray waxa uu leeyahay waxba kama qabanaysa dadka sida sharci darrada waddanka soo galay. sababta u sameeyeen waxay tahay uu leeyahay maadaama 3 toddobaad ay ka hadsan tahay doodeena ayaa waxa uu doonayaa inuu yiraahdo waxbaan qabtay. Biden Trump ayuu eeday wuxuu leeyahay sharciga Congress ay ka wada hadleen isaga ayaa diiday. marka labadooda mid waliba kan kale ayuu eedeynaya. marka madaxweyne Joe Biden hadalkiisa shalay waxa ka mid ahayd haddii qof uu isku dayo in uusan si sharci ah waddankeena uusan ku soo gelin isla markaana iyo ogolaanshaheena qofkaasi waxaa loo diidi doonaa in wax asylum uu helo iyo in uu waddanka sii joogo. sidaasi ayaa madaxweyne Joe Biden uu yiri. sharcigan madaxweyne Joe Biden uu isticmaalay waa 1950kii ayaa la dejiyay waxaana uu ka mid yahay Immigration and Nationality Act gaar ahaan qodobka ama qaybta 212F. sidoo kalena kooxaha xuquuqda dadka soo galootiga u doodo gaar ahaan the American Civil Liberties Union ACL waxay sheegeen in arrintan maxkamad ay la tiigsan doonaan sharciga wareegtadan madaxweynuhu soo saaray waxbana aysan ka duwaneyn tii Trump uu soo saaray xilligii uu xilka hayay. sharciga asylumka ama migratonga ee Mareykanka waxa uu dhigayaa qofku haddii uu ciidda Mareykanka cagaha soo dhigo inuu xaq u leeyahay inuu codsado humanitarian protection in magangelyo dhinaca bini'aadanimada la siiyo. sidoo kale xubnaha dimuqraadiyiinta ee muxaafadka madaxweyne Joe Biden arrintan waa ay ku cambaareeyeen. waxaa sidoo kale ka mid ah Ilhan Cumar, Alexandria Ocasio-Cortez iyo weliba Pramila Jayapal waxay yiraahdeen arrintan waa khiyaano siyaasadihii Trumpna waxba kama duwana waana cadowtanimo. Biden muddadii ku dhawaad 4 sanadood uu xilka hayay 9.9 milyan ayaa waddanka sharci darro ku soo gashay ku dhawaad waa 10 milyan. waxaana sidoo kalena sharciga hadda wareegtada madaxweyne Joe Biden uu soo saaray waxa aysan qabanaynin oo sharcigaasi aan lala tiigsanaynin caruurta aysan waalidkooda la socon oo da'da yar, dadka xanuunsan, dadka human trafficking ay dhibaatooyin ka soo gaartay oo dadka laga ganacsado. waxaa sidoo kale ka mid ah dadka ka soo cararaya qatar markaasi waddankooda ka jirta oo ah inay caddeeyaan iyo dadka meelaha sharciga waddanka ku soo galo oo si sharci ah waddanka ku soo galo. intaasba sharcigan wareegtadan ma saameynayso. marka waa sharci adag. madaxweyne Joe Biden wuxuu yiri maadaama Congress-kii ay waxba qaban waayeen waxaan isticmaalay awoodeyda. maalintii labaad ayaa magaalada Minneapolis xeerbeegtid waxay ka baaraandegayaan inay dambi ku helaan 7 qof ee Soomaalida ah oo lagu haysto lacag gaaraysa ilaa 40 milyan inay musuqmaasuqeen 41 dambi oo laaluush isdabamarin lacageed ay ku jirto. marka magacyadooda iyo sidoo kalena waxaa sawiradooda ayaa la soo saaray maadaama isniintii la xiray arrintii laaluushka markay soo baxday waana kuwan sawiradooda 2 isla dhalatay iyo 2 isla dhalatay ayaa ku jirta. Cabdicasiis Faarax iyo Saciid Faarax waa isla dhasheen, Cabdimajiid Nuur iyo Xayaad Nuurna waa isla dhasheen. marka weli xeerbeegtidu go'aan ma aysan gaarin. maalintii Khamiisteed waxaan ognahay wadada Blastel oo ku taala Minneapolis oo Carmel u dhow in shooting uu ka dhacay. halkaas waxaa ku geeriyooday askari booliska ka tirsanaa oo Jamal Mitchell la yiraahdo. qof kalena waa uu dhintay ilaa 3 qofna waa ay dhaawacdeen. arrintaasi waxaa sababay nin Soomaali ah. askariga xitaa waxaa la dhigay Jamal Mitchell waxa uu isku dayay ninkan inuu caawiyo, waxa uu maleynayay inuu dhaawacan yahay. markaas kadib ayuu qaaday oo uu dilay. marka ninkan Soomaaliga ah ee arrintaasi sameeyay magaciisa waxaa la yiraahdaa Mustafa Ahmed Mohamed. ilaa iyo sanadkii 1993 ayaa ninkan dambiile oo ahaa oo marba xabsi uu galayay oo uu ka soo baxay. ninkan waxyaabaha lagu eedeynay waxaa ka mid ah dhac, inuu dhac geysto oo guri u dhacay, goob oo apartments-ka lagu iibiyo sidoo kale uu dhacay. waxaana ninkan sanadkii 2013 lagu xukumay 8 sano
oo xabsi ah waxaana xabsiga uu ka soo baxay hadda sanadkii 2022 ayuu xabsiga ka soo baxay oo damaanada lagu soo daayay ninkan ilaa iyo sanadkii 2013 looma ogolayn inuu wax huba qaato waa loo diiday inuu wax huba qaato marka sidaa darteed waxaa la leeyahay markii damaanada lagu soo daayay waxaa lagu lugta looga xiray qalabka GPS-ka ee lagula socdo waxaana sidoo kalena aan qalabkaasi kadib garsooruhu uu ka qaaday oo arrintaasi kala laabtay September sanadkii 2022 ayaa waxaa la yiri maxkamad imaaw waa uu diiday November sanadkii 2022 inuu maxkamadii ka soo hormuuqdo waaran ayaa loo soo jaray ilaa hadda marka waarankii ninkan waa la raadinayaba iyadoo waarankii uu jaran yahay oo ninkan uu diiday inuu maxkamadii ka soo hormuuqdo ayaa uu dambigan geystay isla markaana askarigaasi uu dilay isagana markii dambe israasaasin isaga iyo booliska dhexmartay ayuu ku geeriyooday Ilhaan Cumar sidoo kalena aqalka wakiilada ayay shalay ka hor sheegtay waxqabadka askariga Jamaal Mitchell oo halkaasi ay ka hadashay waxaana ninkan hadda uu ahaa nin dambiilaha oo la raadinayay isla markaana ilaa ku dhawaad muddo 20 sanana xabsi inuu galayo inuu ka soo baxaba u dhaxeeyay ugu dambeyntiina booliska ayaa dilay isagana askarigaasi ayuu dilay marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waroodin la sida iyo nabadgelyo